السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي maanta kusoo dhawaada cashar kale oo xiisihiisa wato maanta hadduu ilaahay idmo waxaan ka hadlaynaa qayb ka mid ah qudaarta kala duwan sawiradooda ayaad arki doontaan waxaan kaloo raacin doonaa magacyada loogu yaqaano luuqadda ingiliishka waxaan ku bilaabeynaa insha allah basasha maxaa loo yaqaanaa onion oo basal ahay basasha ayaa waxaa loo yaqaanaa onion waa qayb ka mid ah qudaarta loo isticmaalo cuntada in lagu karsado maxaa ku xiga pineapple cananaaska ayaa waxaa loo yaqaanaa pineapple inaad ku dhawaaqi karto isku day maxaa ku xiga qaraha oo loo yaqaano watermelon qaraha watermelon ama xabxabka ama qaraha sidaa u taqaanaan ahay maxaa noogu xiga qaraha yaanya ayaa noogu xigto tomato waa markay tahay mufrad tomatoes waa markay tahay jamac ahay waa qayb ka mid ah qudaarta aad iyo aadka muhiimka u ah ee cuntada lagu karsado haye maxaa noogu xigi doona barbarooniga haye pepper inaad ku dhawaaqi karto isku day pepper waa barbarooni haye barbarooniga ayaa waxaa la dhahaa pepper maxaa noogu xiga cambe maxaa u taqaanaa mango markuu hal yahay mangoes markay fara badan yihiin es ayaa raacaysa jadwalka insha allahu qaabka isku bedelaan waan baran doonaa insha allah jamaca isugu bedelaan maxaa noogu xigaa baradha ayaa noogu xigto potatoes markay hal xaba tahay potato markay fara badan tahay potatoes baradhooyin ahay potatoes aye maxaa noogu xigo haye qajaarka ayaa noogu xigo cucumber aa lagu dhawaaqayaa cucumber ma ahan cucumber aa leedahay cucumber saas aa ugu dhawaaqaysaa haye maxaa noogu xiga tan idinkaa la idinka rabaa qudaartan noocan ah magaceeda ingiliishka iyo af soomaaliga labadaba wixii lagu dhaho commentiga noogu soo qora insha allah casharo badan ayaan soo wadnaa casharka aa xiiseynayso inaan ku xijino noogu soo sheeg commentiga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh